ilaaliyo waa inuu markaas bilaabo inuu qaabka ula tacaamuli jiray qaab aan ahayn iyada laftigooda waxaa la rabaa muddadaas 9 bilowda inay isdhowrto hadday arrin maaragtay ninkeeda ka leedahay wixii xanaaq keeni kara oo dhan ama wixii problem u keeni kara ama negative u keeni kara oo dhan inay iska dhowrto maxaa sidaa loo samaynayaa wax kasta oo hooyadu dareento ilmaha waa u gudbaaya sababtoo ah waxa isugu xiran mandheerta xidid baa ilmaha ugu xiran cajiiba oo wax kasta oo hooyada dhankeeda ka imaanaya hadday tahay dhinac emotiona oo niyadda ah iyo hadday tahay cunadii iyo nafaqadii dhiiggeedu wuxuu la leeyahay xiriir haddii dhiigkar ku kaco wuu kula kacaya saasay isugu talaalayin isugu xiran yihiin hadday stress dareento stresska wuu kula kacaya stressku marka wuxuu leeyahay hormoono kasoo hormara hormoonada kasoo hormara markay dhiigga ku bataan ilmihiina waa u gudbaayaan markaas waxa dhibaata gaaraysaa ilmahan samaysmaya samaysankiisii khaasatan maskaxdu aad bay u develop garaynaysaa oo waqtigaas maaragtay ay u koraysaa sida aawadeed marka waxaa la rabaa hooyadii inay nafteeda ilaaliso oo buuqa iyo qaylada iyo stresska ka ilaaliso bal iska daaya ani ahaan ma aha wax meel ku qoran waxaan aaminsanahay hooyada tiktoka badsata waqtigay uurka leedahay ama filmaan badsata oo tiktoka daawata ilaa waxaan nafteedu ku calaqan yahay ilmaha laftigiisa waxaan waa u gudbaaya waxa wanaagsan inay quraan dhageysato inay quraan akhrisato inay salaad badan tukato inay ilmahan uurkeeda ku jirana ay u ducayso oo alle subxaanahu wa tacaala mar walba inay shaydaanka ay ka magan geliso 4 bilood markuu ilmuhu soo gaaro 120 beri markuu ku jiro ayaa sida nabigu calayhi salaatu wasalaam noo sheegay waxa ku soo degaysa malaa'igta soo degtay waxay qoraysaa magaciisii waxay qoraysaa janno inuu geli lahaa naar inuu geli lahaa waa sababta ay muhiimka u tahay in hooyada ay quraan dhageysato ilmihii u ducaynayso cibaadadeeda ay kor u qaado buuqa ay iska yarayso si ay ilmo wanaagsan u hesho cayaar ma aha in ilmo fiican la soo saaro wax sahlanna maaha cayaar baan isaga haysanaa galmaa la samaynaya wixii la rabaa la samaynaya bisin loo qaban mayo shaydaan laga naari mayo laguma addamayo waa la iska dhalayaa hadha waxaa la leeyahay qalqaalibu noqday iyo suuquu galay hawl yar ma aha waxaanoo dhan hadda oo maaragtay cilmiga saynisku uu sheegayo waa waxa nebigii jiray calayhi salaatu wasalaam oo diinteenni ku qoran qur-aanku wuu ka hadlayaa ilmuhu siduu u calolgalu ka hadlayaa waxaanoo dhan oo saynisa qur-aanku waa uu sharaxaya isaga laftigiisu wuxuu inaga rabaa maaragtay barasho marka ilmihii waxaa la rabaa marka inay stresskii hooyada ku ilaaliso qur-aankii akhrisato u ducayso malaa'igtaasi markay soo degto oo la qoro shaqii iyo siciid ku noqon lahaa waxaa sidoo kaleeto la qorayaa irsaaqadiisi ayaa la jaangoynaya waxaa la qorayaa wixii uu cuni lahaa maalinta uu dhasho ilaa maalinta uu ka dhimanayo waqtigaas saynisku wuxuu yidhaahdaa ilmaha farahan suulka ah oo bini aadanka kala duwan ilmuhu markuu 120 gaaro beri uurka ku jiro ayuu wuxuu yeeshaa adhantatiga suulka taksiyada suulka oo wuxuu noqdaa shakhsi gaara ilmaha yaroo dhiciska ah oo uurka ku jira marka uu ku jiro 2 bilood oo kaleeto iyo waa isku wada mid way isu wada eg yihiin lama kala yaqaan 120 beri 4 bilood ekaanshihii buu qaataa DNA-dii buu qaataa hiddihii hooyada iyo aabbaha meelihii uga ekaan lahaa waxaasoo dhan baa waqtigaas maaragtay soo baxa wuxuuna ku dhow yahay ilmo dhammaysa wadna weyn buu leeyahay oo garaacmaya waaba aragteen markaas wuu ku haraatiyaya laad buu kugu dhufanayaa wuu seexanayaa wax walba oo ilmo lahaa wuu leeyahay marka taa laga yimaado isdhowridaas laga yimaado hooyadu ay nafteedana dhowrayso ilmahana ay dhowrayso 4 bilood markuu soo gaaro ayay hooyadu waxay bilaabaysaa haddii ilmo kaleeto uu u joogay ilmaha kaleeto u joogay waxaa laga yaabaa inuu sanad jir yahay uu markuu sanadka jiray masalan ama 10 bilood jiray inay uurka qaaday ama uu jiray maaragtay 10 bilood markuu jiray hadday uurka qaaday sanad buuxa markuu jiro ilmahani kaleeto wuxuu leeyahay 2 bilood buu jiraa uurka ku jiraa ilmihii yaraa marka oo sanadka jiray adiga wax kaa khuseeya ma jirto luuqadda ma yaqaanaa iyo sanad buu jiraa iyo wax ma fahmayo iyo caqli ma leh iyo inaan uur leeyahay ma oga shaqo kuu taal maaha waxaynu hadda u gallay mawduucii ahaa masayrka waa inaad ilmaha la socodsiiso u sheegto intaynaan marka qaabka masayrka ilmaha loo baraayo aynaan u gelin waxa wanaagsan inaan horta bal fahamno ilmahan maxaa ka masayrinaya yar oo sanadka jiray waxaa laga yaabaa sanad iyo 7 bilood sanad iyo 8 bilood ilaa 2 sanaba ka soo qaad oo wax dhiman markuu jiro in ilmahan kaleeto uu dhasho oo uu soo baxo ilmahan marka
muddadaa labada sana ah sanadka aad uurka lahayd iyo sanada kanuu soo koraayey ood isaga naaska usoo dhigaysay ilmahan yarood haysatay oo aad horay u haysatay waxa weeye isagaa wuxuu lahaa naasahaaga inuu nuugo isagaa wuxuu lahaa dhabtaada inuu ku fariisto isagaa wuxuu lahaa jacaylkaaga oo dhammaystiran isagaad ku indhakuulanaysay isagaa ma aragtay 24 saac adiga kugu callaqnaayo kugu xirnaa suuliga haddaad gasho isagaa kaa daba ooyayey isagaa ma aragtay ku ilaashanayey isagaa cid kaleeto ilmo kaleeto guriga ma joogin waa ilmahaagii ugu horreeyey wuxuu kuugu callaqan yahay maxaa kaa galay ilmaha marka dhashay adoo aan waxba ogeysiin ayaa ilmo gurigii ku soo biiray wuxuu arkay naaskiisii oo ilmo kale nuugaayo adoo ilmo kale xafaayadda ka beddelaya adoo ilmo kale dhar u gelinaya adoo ilmo kale 24 saac mashquul ku ah adoo ilmo kaleeto habeenbarka u soo toosaya isagiina aan waxba saasa u qabanayn xaq markaa wuxuu u leeyahay inuu bilaabo colaad iyo dagaal uu la yeesho ilmahan guriga ku soo biiray sababtu maxay tahay isaga aragtidiisa waa cadow guriga u soo galay ma yaqaano cidda dhashay ma yaqaano meel laga keenay ma yaqaano meeluu ka soo baxay ma yaqaano yuu yahay ma yaqaan yaa aabbo u ayaa hooyo u ah keliya isaga waxa u muuqata booska uu ka qaaday baa u muuqata marka sidaa aawadeed wuxuu xaq u leeyahay inuu ka masayro wuxuu isku dayey marka inuu cadaawad u muujiyo inuu ma aragtay heer ilmaha qaarkood waaba dilaanba barkin intuu soo qaato buu madaxa ka saaraayo ku xeejiya oo sidaas ku dilaa waa wax dhaca inuu kow kaga siiyo oo dilo waxa dhacda inuu dharbaaxa ku dhufto waxa dhacda inuu intuu diido uu yiraahdo umaba dhawaanayaba oo haddii lugtiisu ay taabato uu ka ooyo ka cararo waxa dhacda haddii dhabtaada uu ku arko intuu gacanta ku dhago inuu jiito hooyooyinka qaarkood dharbaaxay kaga soo goynayaan nuunaha yarkaa ha dilin bab bay kaga siinayaan garan maayaan isla ninkan maaragtay ka dagaashan yahay waxa haya masayrku marka waa wax ku abuuran bini aadanka oo lagu dhasho xaq buuna u leeyahay inuu waxaynu nidhi uu ka masayro waxaana kalifay oo keenay waa ilmo booskiisii laga qaaday oo hooyadiis jacaylkeedii ay xagga u jeedisay hooyaduna mar kasta oo ilmo dhasho waxaa ku soo degta naxariis fara badan kalgacalka ay ninkeedii u haysay kuwa ilmihii hore u haysay waxaa dhan waxay u jeedisaa boqolkiiba 80-90 waxay u jeedisaa ilmahan dhashay oo tabarta yar oo iyadu ay cuntadiisii naaskiisii u hayso kulaylkii xabadkeeda ay u hayso nadaafadiisa ay u qaabilsan tahay hurda seexintiisa ay u qaabilsan tahay wax kasta iyadu u qabanaysay oo qofkii u khidmaynayay ay tahay jacaylkii xaggay u jeedinaysaa kan kaleeto oo yar markaa wayba ilaawaysaa haddii marka labada waalid ay labaduba tarbiyadda fahamsan yihiin aabbuhu isagaa badanaa xoogga wuxuu saaraa ilmihii horeeto oo dhanka aabbaha waxaa la rabaa in jacayl fara badan uu ka helo hooyaduna waxaa la rabaa waqtiga nuunuhu uu ka hurdo inay iyaduna maaragtay ay siiso kalgacal iyo jacayl fara badan oo dhankeeda maaragtay ay u soo jeensato ilmahan yar oo kaleeto oo nuunaha ah oo dhashay waxaan leeyahay ilmihii horeeto inay u soo jeensato marka nuunuhu uu ka hurdo ayaa loo baahan yahay marka sidee loogu diyaarinaya waxaa loogu diyaarinayaa ilmuhu markuu 4 bilood soo gaaro caloosha hooyadu waa soo baxsan tahay xogaa waa soo taagan tahay googarad bay xiranaysaa calooshay marada uga qaadaysaa way tusaysaa taabay leedahay waa nuune markuu haraatiyay kaalay bay leedahay fiiri nuunihii intuu ku jira waa kan haraatiyay hore kama fahmaya marka ilmuhu waayo ma yaqaan inuu isagu meesha ku jiri jiray ma garanayo mana garanayo meesha in ilmo ku jiro laakiin waxaa la rabaa maalin kasta waa maalin kasta hadda maaha isbuucii mar inaad ugu celceliso calooshaada tusto uu taabto sariirta markaa jifto ku yimaada aad tiraahdo alla nuunaha ilaali aad tusto in wax la dhowrayo uu yahay in ilma halka ku jiro nuunaa halka ku jira nuunaa ku jira walaalkaa walaashaa weeye nuunaha ma jeceshahay caloosha marada uga banayso macsi tiraahdo uu dhunkado aad ogolaysiisto hadhow markuu soo baxana sidiiba kaleeto waxaad u dhihi doontaa macsi calooshaadi oo qaawan oo waxba ka xigin waa inuu dareemo oo gacantiisu taabato adiga laftigaaga nuunaha waxaa la rabaa inaad la hadasho si luuqadda uu u barto isagoo uurka ku jira 4 bilood waxaynu bilownaa in ilmaha lala hadlo uurka ku jira quraan in loo daaro in loo duceeyo in hooyadu caloosha gacanta saarto oo la hadasho ilmaha kaleetana waxay leedahay nuunaha dhunko way tusaysaa maalin walba 10 daqiiqo 15 daqiiqo ayay arrintaa xasuusanaysaa markastoy jaanis u hesho ayay samaynaysaa sidoo kale waxaa lagu fahamsiin karaa in loo heeso ilmahan weyn oo sanadka jiray sanad iyo 2 bilood jiray oo ilmahan uurka leh uu ku soo socdo waxaa la rabaa inaad qaab heesa ku fahamsiiso
hees baa jirta marka oo aad adiga samayn karto waxaad rabtaad samayn kartaa laakiin hees uu ku fahmi kara baa jira waayo ilmuhu markuu sanad iyo xoogaa jiro magacyada waa kala yaqaan dadka isaga magaciisana wuu yaqaanaa hooyada magaceeda waa yaqaan haddii walaalo kale guriga joogaan magacoodana waa yaqaan haddii gabarida caawiso shaqaalaha ay joogtana magaceeda wuu yaqaan qof kasta markii magaciisa loogu yeero qofkuu eegaya oo markuu 6 bilood 7 bilood jiro ayuu soo bartaa magacyada sanadkaasoo dhan buu maqlayay luuqadaha waxa uu ka garanayo ayay ka mid tahay marka hees baa u qaadaysaa tusaale ahaan hees waxaa jira aniga aanu sameeyey oo kale waxaad dhehaysaa masalan ilmaha hore oo kuu joogay masalan waxaaba la yidhaahdaa yuusuf baa kuu joogay ama waxa kuu joogtay gabar la yidhaahda faatuma baa kuu joogta waxa marka samaynaysaa magacii baa soo qaadanaysaa halka caruura oo kuu joogay ama labada caruura oo kuu joogay waxaa ka bilaabaysaa nuunaha heesta calooshaad farta ku fiiqaysaa markaa fartaada ku taabato fartaadu eegaya fartaa dhexe farta ugu suulka ku xigta ayaad caloosha saa ku leedahay adigoo taagan ama fadhiya waxaad dhehaysaa nuune 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 3 jeer baad ku celinaysaa nuune 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 isaga ilmaha magaciisa gabar way ka soo qaad faadima la yiraahdaa kadib waxaad leedahay faadima 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 madaxa ka taabanaysaa kadib markaa waxaa leedahay maama 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 adaa xabadkaaga taawanaya kadib markaas aabihii baad markaa sheegaysaa baaba 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 hadduu markaa aabuhu joogo isagana waa tilmaamaysaa hadduusan joogin mobilkaa sawirkiisa ka tusaysaa uu maqan yahay baaba 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 baa leedahay ilmahaasna jirkaabaad heeska u qaadaysaa waa 4 jeer afarta marka wuu kala saari nuune 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 wuu garan marka magacaan lagu bilaabay oo nuune inuu wax caloosha ku jira yahay waa isla fahamnay soo maha waa dariiqo cajiiba oo la tijaabiyey oo ilmuhu ku fahmi karo in meeshaan qof ku jiro nuune 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 fartaad ku taabatay yuyu waa yuusuf waa wiil faadima 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 waa magaceedii maama 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 adaa isku xijinay xabadkaa taabanaysaa aabbaha u damaysanaysaa baaba 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 aabbahu hadduu jooga madaxaad ka taaban baaba 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 waa tusaysaa heestii markaad qaado ilmuhu wuu dhoolla caddaynaya wuu ku eegayaa wuuna ku rikoor garaynaya maalin walbaana samaynaysaa intaa ma isla fahamnay maalin walba yaad samaynaysaa caruurtu waxay wax ku barataa ku celceliska caruurtu waxay wax ku barataa ku celceliska qurankani muxuu yahay 4 bilood fooshii meeqaa kaaga dhiman 5 bilood 5 bilood oo aad maalin kasta aad sidaa samaynaysay ilmahaagu markii 9 bilood ay sadku go'o wuu og yahay nuune wax la yidhaahdaa inuu meesha ku jiro bisha 9aad markaad gasho yaad waxaad u bilaabaysaa wuuna soo koray 4 bilood baad soo waday sanad iyo 2 bilood buu jiray markan waa sanad iyo 6 bilood dhanka luuqadiisa wuu soo koray ilmahana waa ilmaha luuqada baraysay oo maalin walba hadal baristii waxa la rabaa ilmahan yar oo goortu ilmuhu sanad soo gaaro oo hadalka barto badanaa wuxuu dhaqan u leeyahay inuu guriga baaro armaajadu fiirinaya meel koruu fiirinaya sariirtiisuu baaraya wuu furfurayaa sariirta weyn buu fuulayaa luuqyaduu gelayaa guriga banaankiisuu u gurguuranayaa hooyadu waa inay daba socoto iyo aabahuba mar kasta waana la ilaalinayaa waxa uu taabto oo la cajabana magaciisa loo sheegaya hadal baristii baa bilowmaysa waxa la rabaa inaad vocabulary badan siiso ilmuhu markuu sanad jiro ilaa 100 eray waa inuu fahmi karo ilaa 10 erayna waa inuu soo tuuri karo ugu yaraan waa inuu dhihi karo ugu yaraan waa inuu dhihi karo ilmaha aadka looga shaqeeyey 10-20 eray waa dhihi karaa markuu sanad soo gaaro caanuu dhihi karaa hooyuu dhihi karaa ilmo kale idaabuu dhihi karaa bax buu dhihi karaa kaalay buu dhihi karaa waxyaabo badan buu maaragtay uu kari karaa inkastoo luuqadu aad u adag tahay ilmababa waasi waxba culays ha isku saarin ilmuhu 2 sano oo horeeto luuqadiisa lagama warwaro sanadka 3aad bay bilaabataa adiga haddaad sidii caadiga ahaa oo loogu talagalay aad maaragtay aad ula dhaqmaysay oo ula hadlaysay kadib markii uu ilmahan kaleeto uu bishii ugu dambeysay la gaaro ayaad markaa u sharaxaysaa nuunihii waqtigaasaa u haray wuu dhalan rabaa waxa ii haray 2 isbuuc mar walba waa la socodsiinaysaa nuunaha wuxuu ku dhalanayaa cisbitaalka hooyo waxay aadaysaa cisbitaalka markuu dhalanayo maalinta fooshu ku qabato waad u sheegaysaa waad macasalaameynaysaa waxaad leedahay maama waxay soo dhalaysaa nuunadii baabuur baa lagu qaadaya guriga sii joog habaryar ama aabi ama ciddaad uga tegaysaa waad macasalaameynaysaa waana ilma aad awal soo bartay inaad markasta guriga ka baxaysa aadan ka dhuuman oo aad cid uga tegayso oo aad macasalaamayso una sheegto waxa soo socda ilmuhu hadduu waxa soo socda og yahay wuu xasilan yahay information la'aanta iyo xog la'aantu waxay inoo keentaa stress
iyo inuu ilmuhu ooyo kadib markaa waxa dhacaysa markii hooyadii ay cusbitaalka aado waxa iyaduna khasab ah oo waajib ah in hooyada marka cusbitaalka laga soo saarayo haddii aabuhu joogo uu ilmihii soo qaado maalin ka hor waa inuu usii sheego hooyo waa dhashay wiil bay dhashay magacaasaa loo bixiyey nuunii waa soo baxay nuunii baan soo eegaynaa haddii habaryarihiis ama dad kaleeto ehelkaaga ay joogaan iyagana waad kula dardaarmaysaa teleefon baad u diraysaa waxaad leedahay soo kaxeeya una sheega waa la soo wadi cusbitaalku kuugu iman cusbitaalka marka aad joogto waa inaadan dhabta ku hayn ilmaha kan yar markuu kuu soo galo ilmihii yaraa waa inaadan dhabta ku hayn si qacda horeeto uusan u masayrin dhinacaaga waa inuu jiifo waad ka hortegaysaa horta ilmahaaga waad u xiistay xoogaa baad kala maqnaydeen ilmihii yaraa kor baad u qaadaysaa waa dhunkanaysaa gabadhaadi yarayd faadumo markaad dhunkato oo macsiiso oo habsiiso oo aad waraysato baad leedahay nuunii waa kan waa soo baxay waad soo wareejinaysaa nuunii waa kan wejigiisaad u fiiqaysaa waa tusaysaa gacanteedaad qabanaysaa waa taabsiinaysaa inuu kaa diidaa dhici karta kadib markaas agtaadaad soo fariisanaysaa ilmihii nuunahaabaad soo qabanaysaa dhabtaada saari maysid ilmahan kaleetaa dhabta u saaraysaa nuune waa kan nuunihii waa soo baxay calooshii baad taabsiinaysaa waa tusaysaa fiiri calooshii baaba nuunihii waa kan macsi baad leedahay mac bay siinaysaa kadib soo deg baad leedahay halka fariiso kursi baad ku fariisanaysaa ama halkaad istaajinaysaa waa inaad attentionkiisa iyo maskaxdiisu waxa ay ka fakarayso oo dhan inaad la socoto wuu fahmay marka in meeshii ilma ku soo biiray haddii xilligaa marka cusbitaalka aad ka baxayso aabbahaad leedahay qaad aabbaha ayaad waxaad leedahay nuunaha qaad adiguna kii yaraa ayaa haddaadan markaa qaadi karin ilaa wuu socon karaa daadahaynaysaa oo gacanta qabanaysaa cusbitaalka saasaa kaga baxaysan gurigaa geynaysaa guriga markaad geysaba waxaad ku bilaabaysaa inuu ku caawiyo masaasada nuunaha iisoo qabo xafaayadda iisoo qabo nuunihii waan seexinayaa nuunihii waan hurdaa toddobaadkaa waxaa soconaysa sheeko la yidhaahdo nuunaha ilmahaana uu ku caawinayo wuxuu halkaa ka fahmayaa in ilmahan yari uu u baahan yahay waktigaaga uu u baahan yahay caawimaad uu maaragtay isaguna uu kaa maarmay kana marka waxaad ku leedahay mar kasta adi waad weynaatay adi waad kortay adiga wax walba waad qabsan kartaa adiga ma aragtay caanahaaga waad cabbi kartaa nuunaha masaasada adag dhigaysaa waxaa leedahay fiiri nuunuhu masaasada ma cabbi karo ma aragta adigu laakiin waad cabbi kartaa masaasadaada koob baa adigu ku cabbi kartaa adi waa kortay adigu nuunaad ahaan jirtay wuu ku dhegaysanayaa sheekooyinkaa markaad uga sheekaynayso oo dhan wuu ku dhegaysanayaa saasaad marka ku wadaysaa intii maaragtay ilaa iyo intii maaragtay ilmahan kaleetana uu ka kacayo waxay noqonayaan markaa ilmo isogol marka markuu ooyo wuu kuu soo yeerayaa caana markuu u baahdo wuu kula